waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aynu ku eegi doono khilaafkan soo kala dhaxgalay wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay arrimo quseeya socdaalka muwaadiniinta Kenya ee doonaya inay u safraan gudaha dalka. Muwaadiniinta Kenyaanka ah ee ku safraya baasaboorka diblomaasiga ah ayaa iyagana laga doonayaa inay ogolaansho ka haystaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya. Haddaba warbixintani waxaynu ku eegi doonaa maxaa dhaliyay khilaafkan cusub. Safiir in dib loogu yeertaa maxay ka dhigan tahay? Saameynta arrintani ka dhalan kartaa maxay tahay? Goorme ayuu khilaafkani soo xoogaystay? Su'aalahaas iyo su'aalo kale ayaanu kaga jawaabi doonaa mar kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. 29 November bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa safiirka u fadhiya Kenya lagu amray inuu Muqdisho ku soo noqdo, halka midkii Kenya lagu wargeliyay inuu Nairobi aado. Wasaaradda waxa ay sheegtay in tallaabadani ay timid kadib faragelin qawan oo Kenya ay ku hayso arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan maamul goboleedka Jubbaland. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cali Nuur, oo bayaankani ka akhrinayay warbaahinta dowladda, ayaa go'aankooda ku sababeeyay faragelin uu sheegay in ay kaga imaanayso dhanka Kenya. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, Macharia Komo, oo arrintaasi ka hadlayay waxa uu wargeyska Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi u sheegay in xukuumadda Kenya ay ka xun tahay go'aanka Soomaaliya ee ugu yeeratay safiirkeeda. Waxa uu ballan qaaday in labada dal arrintani ay si diblomaasiyad ku saleysan tahay ugu wada xaajoon doonaan. Waxa uu tilmaamay in ay jawaab rasmi ah ka soo saari doonaan warka Soomaaliya ay soo saartay, iyagoo maraya wadiiqooyinka ku habboon. Sanad ka hor bishii November 2019 waxa ay labada madaxweyne ka heshiiyeen arrimo ay ka mid yihiin duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi. Dhankiisa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Maxamed Cali Nuur, ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Maanta ay taariikhdu tahay bisha November 29 2020 dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo gudanaysa waajibaadka ka saaran ilaalinta madax bannaanida dalka, midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed, kana xun faragelinta qaawan ee arrimaha gudaha dalkeena ee ay caddaysatay Kenya, taasoo dhibaato ku ah xasiloonida iyo horumarka gobolka. Waxay go'aansatay in wadatashi ay ugu yeerto safiirkeeda u fadhiya dalka Kenya. Sidoo kale dowladdu waxay go'aansatay oo la faray safiirka Kenya ee Soomaaliya in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa u muuqatay in dowladda Kenya ay si bareer ah u faragelinayso umuuraha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo cadaadis ku haysa madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan si uu u fuliyo qorshaheeda ku aadan faragelinta iyo carqaladaynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashooyinka ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku gaareen Muqdisho 17 Sebtembar 2020. Dhaqamada Kenya waa kuwa ka baxsan curfiga diblomaasiyadda. Fal waliba oo qarannimadeeda iyo amnigeeda dhaawacaya. Dhaqamada Kenya waa kuwa ka baxsan curfiga diblomaasiyadeed ee dalal ay ka dhaxayso dana iyo derisnimo, waana dhaqan ka baxsan dhammaan axdiyada iyo heshiisyadii diblomaasiyadeed ee caalamiga ah. Sidaas darteed dowladda Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la soo farageliyo ama lagu dhaqaaqo fal kasta oo wax u dhimaya madax bannaanida iyo deganaanshiyaha dalkeena, ayuu yiri. Qaar ka mid ah dadka falaqeeya siyaasadda ayaa ku doodaya in safiirada dib ugu laabanaya caasimadaha labada dal ay astaan u tahay in labada dhinac ay qaab kale isku afgaran waayeen. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ku hadasha u sheegay labada dowladood oo diris ah oo safiirada isu celiya waxa ay tilmaamaysaa xiriirka diblomaasiyadeed oo meel adag galay oo si kale la isku afgaran waayay. Marka waxaan is leeyahay wax weyn ayaa la isku hayaa. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Kenya ay madaxweynaha Jubbaland ku cadaadinayso inuu fuliyo ajandaheeda siyaasadeed, taasoo ay sheegtay in carqaladaynta heshiiskii siyaasadeed ee Muqdisho kal hore lagu gaaray ee doorashada Soomaaliya. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo eedahaasi uga hadlayay sida ay la tahay ayaa sheegay eedeymahaas la sheegay Kenya oo qura kuma saabsana. Wadamo fara badan ayaa Soomaaliya soo faragelinayay. Waxay u soo faragelinayaan in ay ka shaqeystaan
si ay ugu soo baxdo meeshaasi cid ay iyagu rabaan. Waxa uu sheegay in halqabay Soomaalida uga farxalan karta faragelinta. Waxa uuna yiri sida kaliya ee Soomaaliya isaga celin karta faragelintaasi shisheeye ee doorashadeeda ama dalkeeda ku saabsan waxa weeye in la kasbado dadkaada. Hadda tahay dowladda Soomaalida labada dal ee dariska ah waxa ay wadaagaan dano muhiim ah iyadoo ay Kenya ku nool yihiin muwaadiniin badan oo Soomaali ah kuwaasi oo ka ganacsada amaba ku nool gudaha Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxaa kaloo jira qaxooti boqolaal kun oo Soomaali ah oo ku nool xeryaha Dadaab iyo Kakuma kuwaasi oo dowladda Kenya ay gacan u fidisay kadib dagaalkii sokeeye ee ka qarxay Soomaaliya sanadkii 1991. Haddaba Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa ku doodaya in arrintani ay wax badan kharibi karto. Labada wadan ma ahan kuwa kala maarmi karo oo jaarku ma kala maarmi karaan ama ha isjeclaadaan ama ha isnacbaadaane Ilaahay baa iskiin baday lamana kala guuri karayo ayuu yiri mar uu waramayay BBC-da qaybta laanta afka Soomaaliga ee dalal ay ka dhaxayso dano iyo darisnimo waana dhaqan ka baxsan dhammaan axdiyada iyo heshiisyada diblomaasiyadeed ee caalamiga ah. sidaa daraaddeed waxaan la tashi ugu yeeranay danjire Maxamed Axmed Nuur Tarzan oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya. waxaana la farayaa danjiraha Kenya u fadhiya dalka Soomaaliya mudane Lucas Tombo in uu dalkiisa wada tashi ugu laabto. dowladda federaalka Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la soo fargeliyo ama lagu dhaqaaqo fal kasta oo wax u dhimaya madax bannaanida iyo deganaanshaha dalkeena. xiriirka labada dal ayaa heerkii ugu xumaa gaaray sanadihii la soo dhaafay kadib markii uu soo cusboonaaday muranka la xiriira lahaanshiyaha qaybo ka mid ah xadka dhinaca badda halkaasi oo la sheegay inuu ku jiro kheyraad dabiici ah oo qiimo badan leh. muranka dhanka badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa in muddo ah soo jiitamay waxaana sanadkii 2015 ay dowladda Soomaaliya u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ dacwad ka dhan ah Kenya. dacwadaasi ayaa wali hortaala ICJ waxaana garsoorayaashu ay ogolaadeen in maxkamaddu ay dhageysan karto dacwadaha la xiriira arrintan inkastoo Kenya ay mar walba doonayso in arrintani lagu dhameeyo qaab isfahan ah oo banaanka ka ah maxkamadda. dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa horaantii sanadkan hakisay duulimaadyada rakaabka ah iyo kuwa jaadka taasi oo qayb ka ahayd tillaabooyin lagu xakameynayo cudurka faafa ee coronavirus. balse dowladda Soomaaliya dib ay u furtay duulimaadyadii haddana jaadkii wali waxaa saaran xayiraad. Kenya waxa ay maalin walba Soomaaliya u dhoofi jirtay jaad oo loo iibgeyn jiray magaalooyinka kala duwan ee dalka sida uu sheegay wargeyska The Foreign Policy. 15 diyaaradood oo jaad wada ayaa maalin walba ka degay magaalooyin badan oo Soomaaliya ku yaal waxaana ganacsatada Kenya la sheegay in sanadkiiba ay ka soo galayso lacag gaaraysa 144 milyan oo dollarka Mareykanka ah. dhanka kale goor sii horeysay waxa uu xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Macharia Kamu sheegay in ay jirto arrin in muddo ahba miiska saarneyd oo ah in dalku galka loo fududeeyo dadka ka imaanaya Soomaaliya. arrintan ayaa soo baxday kadib markii wafdi uu hogaaminayay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya uu dhawaan tagay magaalada Muqdisho halkaasi oo madaxda dhigooda ay kala xaajoodeen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta ganacsiga iyo sidii looga faa'iideysan lahaa fursadaha ganacsi ee labada dal. haddaba warkan ka soo yeeray hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ee Soomaaliya saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa xiriirka awalba meel xumaraya ee u dhaxeeya labada dal Kenya iyo Soomaaliya.